la taliyihii hore ee dhanka maamul goboleedyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan hore Maxamed Xasan Ibraahim Qoono ayaa bartiisa oo Facebook ku leeyahay ayuu ku daabacay qoraal sidaan u dhignaa waxaan si cad u ogeysiinayaa dhammaan asxaabta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan in qoraal dhawaan lagu baahiyay Facebook uu yahay mid been abuur ah laguna sameeyay magacayga si qaldan waxaan aad ugu xumahay arrintan mana jirto wax aan xiriir la leeyahay qoraalkaas fadlan iska ilaaliya wararka aan la hubin hana ku kalsoominaha wax kasta oo lagu arko baraha bulshada iyadoo aan la xaqiijin mahadsanidin la taliyihii hore Maxamed Xasan Ibraahim Qoono saas waxaa qoray xildhibaan hore Qoone hase ahaatee qoraal baraha bulshada qabsaday oo lagu daabacay magac been abuur ah ayuu ka filcelinayay xildhibaankii hore mahadsanidin